السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشمارك محمد علي مدح برنامج كون كابتن نتوك. اللهم صل على سيدنا محمد أصحابته. waxaynu eegaynaa dhowr lacageeyow oo aad moodo in ay fursad sameynayaan kadib markii ay gaareen sicirku uu aad u qaaliyoobay oo uu gaaray aag markaa mukhaarij ah. allahumma salli ala maxamed. waxaynu aragnaa euro young markaynu daily-ga joogno price-ku hoos soo noqdo pullback yar ha sameeyo, laakiin zona waxa uu joogaa resistant noqday. marka waxaa suurtagal ah price-ku mar labaad inuu hoos sii socon karo. allahumma salli ala maxamed. waxa weeye مثلا haddana imaado 4 hour ko kale price-ku waxa uu korbu socdaa xoogaa, wali waxay moodaan xoogaa kor u socdo, laakiin resistance-ka xoogan ayaa kusoo fool leh. waxaa laga yaabaa in resistance-ka markuu gaadho inuu markaa maxay uu dib u soo noqdo. resistance-ka uu ka falceliyo waa dhowr jeer, 3 4 5 jeer oo price-ku uu zonaha uu ka falceliyay. waxa weeyaan markaa waxaa suurtagal ah price-ku markuu zonaha gaadho in resistance-kaas aawadi uu markaa mar labaad uu hoos soo noqdo. allahumma salli ala maxamed. ikaadi haddaan 1 hour ka imaado imika halkaas stop loss-kii baan halkaa dhigay just break even ahaan, target halkaasaan ka galay buy baan idhi halkaasaan buy idhi. marka xoogaa inta yar baan kor u raacay. marka level-kan weli lama jebin. waxaan filayaa xoogaa inuu price-ku sii yar socon karo, kor sii yar socon karo. marka short term ahaan long baan halkaa u galay, inta yar baan long u galay, laakiin waxa weeyaan xaggana entry kale baan dhigay oo ah sell stop ah oo price-ku markuu inuu soo noqdo aan filayaa. marka adigu waxaad samayn kartaa مثلا 1 hour ko kale hadda timaado trend line baad sawiran kartaa. price-ku marka uu trend line-ka uu hoos jabsado ee uu xajisto unbaad hoos soo raacaysa. allahumma salli ala maxamed. waayo halkaa imika aan long u galay waxa weeyaan waa short term, inta yar baan islahaa fursad ahaan, laakiin marka uu hoos soo noqdo sell stop baan halkaa dhigay. allahumma salli ala maxamed. marka waxa aynu filaynaa oo qorshaheenu yahay allahumma salli ala maxamed. waxa weeyaan euro young inay resistance xoogan soo gaadhay, deedna price-ku iminka waxba kor u geli mayno scalping iyo waxaa iska daaya, laakiin waxba kor u geli mayno. waxa weeyaan waxaan sugaynaa markuu price-ku zonahan inaga siiyo sida aba odhanaya markaa ama fursad odhanaysa maxay in hoos loo galo. marka farsamada doonto isticmaal, haddaad doonto trend line isticmaalba, oo trend line-ka markuu price-ku uu hoos jabsado oo uu xajisto markaa hoos u gal. haddaad doontana candlestick pattern isticmaal, nooca doonto isticmaalo. haddaad doonto level-kaba ku gal adoo riskigaaga xadidaya level-ka ku gal. waxa weeyaan zonaha price-ku markuu gaadho waxaanu eegaynaa waxa weeyaan maaha entry ah inaynu long galo, waxa weeyaan inaynu short u galo, in hoos u galo. waayahay euro young iyana hoos baynu gelaynaa. waayahay allahumma salli ala maxamed. Aussie US ikaadi Aussie US waxa weeyaan iyana price-ku waa si lamida. price-ku si xawli buu hoos ugu socday. allahumma salli ala maxamed. markii hore meelahaasaan short ka soo galay. line-kan maaha kii short-ka ahaa, waxa weeyaan waa horaan u galay
cell baan ugu jiray dabeedna price markuu hoos socday zoonaha soo gaaray pullback buu sameeyey allahumma salli ala maxamed already positionka cellka on ka baxay laakiin iminka waxa mar labaad uu price ku sameynayaa fursad oranaysa in short u galo price kadib markii uu zoonaha uu xoog hoos ugu socday waayo afaya OCS meelaha markaan marinay inaan muuqaalada hadda tixraacdaan inaan signalkeena la wadaagay oo yiri trend line-ka haduu price ku jabsado marka meelahaas inuu ka galay sida muuqaaladeena hore isku socodsiinay todobaadkii hore dabeedna price-ku intaas oo dhan la raacnay waxa weeyaan targetkii uu gaaray allahumma salli ala maxamed intii ila socotay marka waxa weeyaan price-ku wuxuu sameeyay pullback ku sameeyay pullback ha sameeyo wuxuu gaaray iminka zoonahan waa zona istifa zona waxa weeyaan zona lagu loolamay waa zona price-ku tijaabiyay waa zona waxaan odhan isku wada dar waxa weeyaan waa zona tilmaamaya inuu resistant yahay waa zona tilmaamaya inuu zonahaas resistant noqon karo waa zona resistant noqon kara price-kuna markuu soo gaaray oo ka spike buu bilaabay ayuu bilaabay marka aagan waxaan ku eegaynaa oo ka barbaaranaa fursad oranaysa short u galo targetkii uu reaalkaasaan dhigay kii labaad xaggaasaan dhigay allahumma salli ala maxamed saddexaadna waxaan dhigay zoonaha waaya allahumma salli ala maxamed marka waxaan yeelaynaa إيجادي اللهم صل على محمد وانا وردان ماذا OCS waxay pullback kor sameysaba waxaan moodaa in aad u price-ku qolada price-ku ay luudayaan marka value far badan ma jiro marka price-ku ama bartiisa ka noqdo ama hadduu doono xoogaa yar socdo waxa weeyaan waxaanu sii hilaadinaynaa inuu price-ku uu short soo noqon doono haddii waxoogaa kor yar socdana waa haddii markaa zoonahan spike meelaha kan wixii stop loss ka dhigtay laisleeyahay soo gacan mariya markaa ama price halkii sidaasuu ka noqonayaa ama xoogaa intuu kor yar socdo oo stop loss-ka wixii meelaha dhigay soo yar taabto ayuu soo noqonayaa waxa weeyaan allahumma salli ala maxamed iyana targetka waxaan dhigay kalabaad halkaasaan dhigay allahumma salli ala maxamed ka saddexaadna waxaan dhigay isna zoonahan allahumma salli ala maxamed oo dailiga zona support noqon karaa waxaan filaynaa markaa price-ku wuxuu yar kor pullback u sameeyaba in aakhirka mar labaad short oo hoos soo socon karo ilaa uu zoonahan kasoo gaari karo zona yoga uu kasoo gaari karo waaya allahumma salli ala maxamed OCS iyana waxa weeyaan qorshaheenu wuxuu noqonayaa price-ku maadaama uu soo gaaray zona resistant ah uu soo gaaray in halka ka baarbaarno maxay fursad oranaysa short marka riskigaaga muhiim aha inta pip uu yahay laakiin si waa inaad lotkaad qaadanaysa ba muhiima marka riskigaaga ama halkaa dhig waxa weeyaan waa inaad riskiga controlsha oo aad allahumma salli ala maxamed aad u xadidaa marka loo eego markaa waxa aad trade-ka ka fulayso ee ah targetka اللهم صل على محمد واي اوزي يان دولار استراليا iyo yanka japanese hadana eegno isna waa la mid waa same اللهم صل على محمد isna price-ku wuxuu hoos soo socdaa price-ku wuxuu sameeyay pullback dadna zonaha soo gaaray zona yoga oo ah zone markaa hore
price ku tijaabiyay oo iminka maxay ah support noqday oo iminkana price ku resistance ku noqon kara marka price ku pullback u sameeyay zoonahan waxaanu ka baarbaaraynaa marka maxay fursad oranaysa marka aan short galno target ku horeeya meelaha soo dhigaynaa ka labaadna meelaha ay wax ka hooseeya Allahumma salli ala Mohamed waaya pairskan waxaad moodaa inay isku qaab dhammaantood isku dhow yihiin basi marka price ku zoonaha ayaan ka baari doonaa maxay fursad oranaysa marka short oo soone haduu in yar sii socdana aga gaarso dhan ayaan ka baari doonaa marka fursad oranaysa inaan hoos u galo qaabka doonto isticmaal markaad gelayso levelka hadda doonto ka soo gal hadii kalena waxaad sawiran doontaa trend line dadna trend line ka price markuu xajisto oo si fiican trend line ka oo xajisto oo ayuun baad hoos u geli doontaa trend line ka price ku marka uu soo hoos maro oo uu dabeedna xajisto ayuun baad markaasi kalsooni ku jirto aad hoos short u raaci doontaa haddii kalena aad taqaano candlestick patterns-ka bearishka ah ayaa zoonaha ka midun ku geli doontaa haddii kalena aad riskiga si fiican u xadidi karaysana levelkan aynu joogno baad ku geli kartaa waaya anyway waxa weeyaan Aussie Young waxa weeyaan waa bearish kadib price markuu pullback sameeyay waxaan ka filaynaa waxa weeyaan inaynu short gallo oo price ku sii wato Allahumma salli ala Mohamed socdaalkiisi ahaa inuu hoos socdo inuu price ku sii wato inta uu meelahan kasoo gaarayo inuu price ku mar labaadisna uu hoos sii socdo waaya Allahumma salli ala Mohamed ugu dambeyntii frank young franka Swiss franka iyo Allahumma salli ala Mohamed iyaanka Japanese-ka haddii aynu eegno mar hore meelahan aan ka soo galay long baan la socday oo Swiss franc young long baan ugu jiray markaa Allahumma salli ala Mohamed laakiin imika waxa la soo gaaray maxay zone markaa isna sidaynu sheegnay resistance ah zone yogan oo ah zone resistance noqon kara xoogan Allahumma salli ala Mohamed waxa weeyaan price ku waxa suurtagal ah inuu aagan ina siiyo markaa fursad oranaysa inuu hoos u soo noqonayo Allahumma salli ala Mohamed iyana hadda wana warka imaado zoonahan oo ah markuu price zoonaha resistance ka soo gaaray waxa weeyaan wuxuu sameeyay candle pressure xoogan wada aragtaa dulbaba oo isku geedaamay candlekii kale dulbaba waxa weeyaan candladaasi way isku soo noqdeen oo la isla baaxadagaya marka waxa suurtagal ah price ku inuu markaa uu hoos soo noqdo sideen hore u sheegnay farsamada doonto isticmaal haddaad ku kalsoon tahay levelka haddii kalena candle patterns-ka aad si fiican aad u isticmaali kartana iyaga isticmaali doontaa Allahumma salli ala Mohamed haddii kalena adoo waxba is dhibin waxa weeyaan waxaad samayn doontaa trend line-kaas ayaad sugi doontaa price ku inuu hoos ka hoos maro oo deedna uu hoostiisa xajisto deedna short hoos u sii raacdo waxa weeyaan Allahumma salli ala Mohamed iyana dayga daymaado price ku pullback buu sameeyay zoonahan support kam ku soo gaaray ayuu pullback sameeyay marka imka ku dheeda wuxuu joogaa maxay zone
اللهم صل على محمد level maxay markaa resistant noqon kara price ku noqon kara اللهم صل على محمد gudaana sicirku soo noqdo way waxa suurtagal ah sicirku inuu aaga uu ka sameeyo markaa fursad ah inuu hoos u sii socon karo hadhowto markaa ma levelada soo gaaro ama ha ka sii hoos marabe markaa waxaan sameeynaa ikaadi اللهم صل على محمد وراور كذا الماضي ikaadi horta price ku 4.88 uu joogaa hadaan ka siraado ikaadi zoonaha kal halka targetkaas wuxuu noqon karaa 198 pip marka loo eego maxay levelka waa 115 pip kamar walba pipska aad riskiga aad bad ka dhigayso aad riski garaynayso iyo waa inay ka yaraadaan maxay pipska maxay aad targetkaagu yahay aad doonayso inaad macaashto 115 is okay marka loo eego 115 waxaan sameyn karaa اللهم صل على محمد candle kan u dambeeyay 4 hour kuna wuxuu tilmaamayaa candle kaas bullish ahaado laakiin ifafaala ah inuu bullishkiisa sii socon karo inoo muuqana wuxuu tilmaamayaa candle kala adkaan ah oo dhinac walba la soo eeriyaday bariga wax yar dhinac walba la soo eeriyaday markaas ma tilmaamayo markaa astaan xoogan ah in sicirku kor u sii socon karo yelkadeed waxa weeyaan haddaan misalan walaalku kala eego oo kala hadaan eegana waa aagana waa aag lagu raftay oo candleka xoogan ee bearishka uu ka muuqdo candleka xoogan ee bearishka uu ka muuqdo اللهم صل على محمد candladuna aanay qurux badnayn oo tilmaamaya in barta lagu hirdimay zoonaha la joogaana uu yahay zone markaa resistant ah uu yahay zone resistant ah marka waxaan sameyn karaa barta isaas ka gali karaa anigu اللهم صل على محمد short lodka iyo waa inaad isu qiyaastaa iyo capitalkaaga khasab maaha inaad ugu dayato halkaan 1.5 aad geliso اللهم صل على محمد short life baan u galay marka riskigan waxaan dhigay bartii levelkiina hore u sheegnay اللهم صل على محمد target ka wareeyana waxaan dhigay maxay level kaas oo ah isna support ka horeeya support noqon kara exportka ka horeeyana orane kan yar baa ka sokeeya laakiin support xoogan noqon kara inkastoo rumaysnaa price ku sii dhaafi karo hadduu level ka gaaro anyway اللهم صل على محمد target ka halkaas aan dhigo zoonahan oo support noqon kara khasab ma ilaa pip u dambeeya inaad la raacdo laakiin markaas taado اللهم صل على محمد natiijadaadina ay tahay positive targetkina waxay u jirto price kuna haddii uu ku sii astaan ka dhan ah markaa profit ka qaadan karta asxaabta Swiss franc young waxaanu si live u galay iyana short اللهم صل على محمد inaga oo markaa sidoo kale eegnay price-ka Aussie young iyo Aussie US iyo Euro young
اللهم صل على محمد وحيي لسان انت سنكسو كوبيا أصحابتي شقوعا عدي دونسا عن سي لايف أناليسيس كنا ولا صحيح كران اللهم صل على محمد يجلس ديوان قلنا معلومات في التليجرام جروب شماركه لشخص يلا وشماركه إذن له شقوعا أصحابته ودنبينتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.